xajkii sanadkan 2020 kaasoo inta la ogyahay taariikhda casriga noqday xajkii ugu tirada yaraa ee dad muslimiin ah ay tagaan oo ay markaa ka qayb galaan. haddaba dhibaatada marka ay soo baxday cudurka coronavirus ayaa inta badan dunida oo dhan waxaa kala xiray cudurkaasi. haddaba dowladda boqortooyada Sacuudi Arabiya ayaa ka mid ahayd meelaha uu sida weyn cudurkaasi u saameeyay iyadoo dad badan cudurkaasi uu soo ritay qaarna ay u dhinteen kuwana ay ka fayoobaadeen. haddaba si looga hortago dhibaato kale oo ku faafta caalamka ayaa la joojiyay goobihii la isugu tagi jiray sida masaajidyada iyo goobaha cibaadada waxaana ka mid ahaa masjidka xaramka iyo masjidka nabiga calayhi salaatu wasalaam. haddaba xajka sanadkan ayaa Sacuudigu qorsheeyeen in 10,000 oo qof oo markaasi u dhashay wadanka boqortooyada Sacuudi Arabiya ay xajiyaan. 10,000 oo qof ayaa waxaa la sheegay 70% inay noqonayaan dadka aan Sacuudiga u dhalan ee degan wadanka boqortooyada halka 30% dadka Sacuudiga u dhashay ay yihiin. haddana dadka Sacuudiga u dhashay ayaa waxaa laga sii xulay in dadka xajinaya ay noqdaan dadka ka shaqeynayay hay-adaha caafimaadka dhibaatada badan ee cudurka coronavirusna dadka uu ku hayay iyagu markaasi ka daweyn jiray. waxaa sidoo kale ka mid ah hay-adaha ammaanka dadka ka tirsan oo iyaguna dadka xajinaya ka mid ahaa. haddaba mucjisada xajka laga soo sheegay ayaa waxay ahayd iyadoo coronavirus laga baqayay dowladda Sacuudigu waxay imika soo gabagabaysay xajkii. wasaaradda caafimaadkuna waxay si rasmi ah u sheegtay in xajka sanadkan aanu la diiwaan gelin hal qof oo uu ku dhacay cudurka coronavirus taasoo baqdin weyn laga qabay inay dadka isqaadsiiyaan. haddaba arrintani ayaa dad badan ku tilmaameen inay tahay mucjiso rabbaani ah oo markaa haddii malaayiin qof ay tegi lahayd xataa aan laga yaabeen in cudurkaasi uu ku dhaco. sababtoo ah dadka imika waxaa la sheegay in la kala fogeeyay meel kasta oo ay u tagayeen inay cibaadaystaan ayay dadku kala fogaayeen. dowladuna waxa ay ku qasabtay dadka inay qaataan marada sanka lagu xirto iyadoo sidoo kalena dadka loo diiday sanadkan inay dhunkadaan oo ay madaxa gashadaan xajarul aswadka iyo sidoo kale inay taabtaan kacbada iyadoo laga baqayo cudurka in la isqaadsiyo. dowladda Sacuudiga waxay sidoo kale dadka Sacuudiga ee xajinayay sanadkan ay ku amartay in markaa qofka markuu xajka soo dhameysto uu isagu iskii isu karantiilo. daawadayaal warkii oo aad kala socoteen stuudiyaha Somali Cable aanu ku leenahay magaalada London waa naga inta anigoo NADARA ayaa idinla socodsiinayay. inta aan mar kale warkan mid lamid ah ku kulmayno sida iyo nabadgelyo. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.